qorto xilada sheekh rubadka ayaa inta badan xanuuna waqtiga ramadaantii horena waxa la igu lahaa 15 cisho oo ma aanan soomin markastoon israahdo soonna xanuunkaasi uu igu yimaadaa dhakhtarradina waxay ii sheegeen inaan negative ahay oo aan waxba la igu lahayn waxba aanay haynin marka 5 cishaan 15kii ka soomay 10 ka soo haray fiidyo ma bixin karaa bay leedahay su'aasha saddexaad waxa uu leeyahay sheekh wadna xanuun ayaan leeyahay marka aniga oo sooman hadii wadnuhu yahay xanuuno miyaan afurayaa dhinaca kale waxa uu leeyahay maalmaha kamid aniga oo sooman ayaan dhacay dabeetana ardaydii jaamacadda ila dhiganaysan ogeyn inaan soomanahay ayaa waxa ay siiyeen biyo marka miyay iga jibinaysaa soonkaygii buu leeyahay su'aasha afraad gabadhan waxay leedahay sheekh waxaan ahay gabadh uur leh waana ilmihii koowaad oo ugu bayaanahay ilmuhuna waa 7 bilood sida awgeed kursi ayaan ku tukadaa bay leedahay culayska ilmahaas awgii marka ilaahay ka raaleehada sheekh diintu maxay arrinkaasi ka qabtaa su'aasha ugu dambaysa waxay leeyahay saa'ilkani waxa aan maqlay in marka la ducaysanayo aan la raacin karin ereyga insha Allah marka maxay tahay talow sababtu qofku isagoo ducaysanaya ma oran kara ilaahu waxa isi insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد سؤال شهراء نذرك يا رمضان كيف له الرئيسينية رمضان له الرئيسينية وقت كان عبادتنا وعبادة مضيقة وليست موسعة ما هم وقت جيدو وحول بأقبل كره صومك كليه بشهر رمضان يقبل يسا ورمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن القاسي آخر ذي لها يحلو فمن شهد منكم الشهر فليصم رمضان بلو صومي كرا كدبنا نذر كاسات آيات صومي دونتا مرك رمضان لقى بحر الله هي النذر كهدي الله يدعنا لبضا كاتونتا الرئيسين كرتا قلهنا دق maaha nadarkuna waad horeysin kartaa waana dib dhig kartaa laakiin waxaynu ka hadlaynaa war rabadaanta waqtigeedu jooga imaka labada su'aalood kale waxay la xiriiraan bukaanka iyo ramadaanta qofka bukaanka ahi haduu soomi kari waayo uu iska cunaya maradu buko ramadaantuna soomkuna dhibayo uu iska cunaya uu iska afuraya sida quraanka bay ilaahay ku cadeeyay subhanahu wa ta'ala waanu soo qalaynaya intii maalmood ramadaan ka tagtay in leeg hadii ay u suuroobi weydo inuu soomo ramadaan qalihiina u suuroobi waayo cudurka daraadi raashin buu bixinaya maalintii walba 1 kiilo 30 cisho 30 kiilo 29 cisho 29 kiilo saasuu wadaya marka bukaan la rajaynayo inuu ka bogsado iyo bukaanaan la rajaynaynin inuu ka bogsado labadaas baa loo kala qaadaa ka xanuunkaagu yahayna adiga sheegi ama rubadku ha ku xanuunayo ama wadnuhu ha ku xanuunayo labadaa mid u badgalaysa adiga iyo dhakhtarku marka isla eegtaan ama qalla ku suuroobiyo waad soo qallayn hadii soomkii waqtigiisu la joogay iyo qallihi midna suuroobi waayo raashinka loo guuraya qofku haduu ku tukan kari waayo fadhiga ama uur halahaado ama jilbuha xanuunaya ama dhibaato hayso uu iskaga tukan karaa fadhiga nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam imraan ibn husayn asxaabiga la yiraahdo uu jawaabayo sarajooga ku tukab dad kari weyda fadhiga dad kari weyda chief fattaqullaha mastada'tu adiga waxba ha karanaynin kolba sidii aad kari kartaa ilaahay ku caabudaysa laguna kalifi maayo ducada iyo mashii'ada la isma raaciyo ilaahay waxa isti hadaad doonto wala diiday oo rasuulka diiday sallallahu alayhi wasallam min aadab ad-du'a al-jazm ducada aadaabteeda waxa kamid ah in go'aan ahaato hadaad doontana go'aan kuma jiro haduu dooni waayo maxad qaadi kartaa ilaahay hadaad doonto iga aqbal baatil haduu dooni waayo meel kale oo aad u kacdo iyo cid kale oo ilaahay ku bedelata miyaad haysaa marka aadaabta ducada kama mid aha إن شاء الله إلا يدعو إلا إن شاء الله معناه ذو حوي حدا دونته حتى هدي التبرك تود بركة سنة سوات كدينيس
maadaamuu nebigu diiday calayhi salaatu wasalaam wallahu aclam jazaaka allahu khayran fadiilat الshaykh qeybta labaad ee su-aalaha su-aashan koobaad gabadh ayaa soo qortay waxay leedahay sheekh anigoo aan daahir ahayn qur-aanka dusha ma ka akhriyi karaa ama ma dhegaysan karaa talabaad aayadaha adkaarta ku jira sida adkaarta subaxii la akhriyo iyo aayatulkursiga oo kale saasoo kale ku jira iyaga ma akhriyi karaa bay gabadhaasi leedahay su-aasha labaad ardayd baa soo qortay waxay leedahay sheekh markaanu aqoonta ku tartamayna casharada dugsiga ee nalooga baahan yahay degdega ma soo gaabsan karaa salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam marka aan qorayo anigoo xarafka saad keliya usoo gaabinaya ma soo kaabin karaa ayay leedahay su-aasha ku xigta nin ayaa soo qoray waxa uu leeyahy sheekh waxaan ku noolahay dalalka galbeedka waxaana meesha aan deganahay aada ugu badan kiniisadaha iyo meelaha ay gaaladu ku cibaadaystaan haddii aan galo kiniisad diintayda miyay wax ka soo gaadhayaan anigoo doonaya inaan soo daawado iyo waxyaabaha la midka ah su-aasha ku xigta saa-iilkani waxa uu leeyahy sheekh sidoo kale waxaan deganahay dalalka galbeedka waxaan asxaab la ahay dad badan oo aan muslimiin ahayn marka xafladaha ciidda gaalada ma ka qeyb geli karaa haddii saaxiibadayda gaarka ah ay igu soo marti qaadaan su-aasha qeybtan ugu dambaysa saa-iilkani waxa uu leeyahay sheekh qurbaha ayaan deganahay halkan badi dumarka soomaalida ee ku nooli buu leeyahay sanka ayay dalooshadaan markaa weydiinteedu waxay tahay qofka dumari inay sankeeda dalooliso ma bannaan tahay bismi اllahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilah ruuxa dumari markaanay daahir ahayn ama qofkuba dee uu jinaabo qabo mas'ala khilaafiya weeye waa masale ay culimadu isku khilaafeen qur'aanka kariimkaa inuu akhriyi kara iyo in kale laakina jumhuur culamaa calaa khilaafi culimadu intooda badani waxay qabaan calaa an laa yaqra' inaanu qofkii qur-aankii akhriyin kitaabkiina taabanin sidaa daraaddeed waxaynu leenahay dee baahi adagoo kuu qabata mooyaane sida adigoo imtixaan ku jira ama qofkii qur-aankii ilaawayo xaaladaha mooyaane inuu qofku iska daayaa wanaagsan dikriga kii u qaalisanaa weeye qur-aanku la iskumana khilaafsana dikriga inay wanaagsan tahay marka uu qofku daahir yahay saa daraaddeed daahirka dahaaradaad la eegan insha allah kolka rasuulka sala allahu calayh wasalam magaciisa lasoo qaado waa in lagu saliyaa sala allahu calayhi wasalam taasi waa markii dee afka laga dhawaaqayo laakiin markay qoraal noqoto miyaa la dhammaystirayaa mise waa lasoo gaabsan karaa sida fiicani waa in la dhammaystira bay leeyihin culimadu ikhtisaarkuna wuu iska bannaan yahay inaad soo gaabiso saad ku soo gaabiso siduu imaamu axmed samayn jiray raximah ullah laakiin waxaa ka fiican in la dhammaystiro kaniisadda inaad iska daysaa wanaagsan haddaad gelaysana dadka ku jira inaad hanuunisood waxu sheegto ayuunbaad u geli kartaa laakiin inaad dalxiisto iyo inaad daadaawato waaba intay ku jiidataaba waa wax naftooda soo jiitaa oo ama lagu xayeysiinayo ay meesha ka jiraan ama lagaa qaniinaba intuba waa suuragal marka inaad iska daysoona tegin ayaa wanaagsan ama aan diintaadu laakiin waxba noqon mayso kole haddaanu qofku gaaloobin oo aanu ku tukanayn diintiisu waxba noqon mayso laakiin daawashadeedu sax maaha inaad iska dayso weeye inaad ciidaha gaalada kala qayb gasho iyo inaad la saaxiibto gaalkii labadubana waxay kuu jiidi karaan gaalnimo xaaraan weeye ciidaha gaalnimada in laga qayb galo waayo ictiraaf bay sheegaysa inaad aqoonsatay oo aada ictiraaftay wax baatil ah shay baatila oo aan jirin inaad ictiraaftood aqoonsatay ayay sheegaysa marka inaad iskaga bereti noqoto wey sidaa daraaddeed baa culimaduna aada uga digi jireen waidaa maruu bilagwi maruu kiraama wixii xun markay soo maraan way dhaafaan ee kama qayb qaataan iyo wixii bilaa macno ah wax macsiyaana iska daabaan qofka gaalkaa la saaxiibistiisuna khatar bay leedahay rasuulku sala allahu calayh wasalam waxa uu leeyay almaru calaa diini khaliilih falyandur axadukum man yukhaalib qofku diinta saaxiibkiibuu haystaaye qof walooba ka fiirsa cidaad la saaxiibayso dhibcuu kugu dhibqinayaa marka dambe wixii sucaadi bay kula noqonaya inaad raacdaana waa laga yaabaaba sankoo la dalooshadaama bannaana
waayo wejiga wuxuu diiday nebigu in lagu ciyaaro xataa xoolahan laga sunti karin dadkuna inuu dalooshado iska daa marka waa dhaqamada hinduuska iyo hindida bariga ee dabcaabudka ah soomaaliduna wixii arkaanba waxay isaga qaataan inuu yahay ilbaxnimo walow gaalnimoba ha ahaadee saa daraaddeed la daloolin maayo waa inay dumarku ka fogaadaan oo iska ilaaliyaan wallahu aclam jazaaka allahu khayran fadiilat asheikh qeybta ugu dambaysa ee su-aalaha su-aal baa jirtay maalmahan soo noqnoqonaysay oo maalintii sabtida waxaa dhacday in eedaankii salaada maqhrib dadka qaar ay eedaameen wakti ka horeeya waktigii ay ahayd in la eedaamo sidaa awgeedna dad badani ay ku qaldameen oo ay markaa ku afureen markaa sheekh dadkii afuray soonkoodii muxuu noqonayaa qofka muadinka ah ee ammaanadii ilaalin waayeyna isagana maxaa laga yeelayaa su-aasha ku xigta gabadh baa soo qortay waxay leedahay sheekh hooyadii waxay ii bixisay yurub aniguna markaan ogaaday in waddamada gaalada magacaa la yidhaahdo waan iska bedelay oo hodan ayaan la baxay reerkii markaa aan ka dhashay waxa aan u sheegay inay iga daayaan magacaas markaan la joogo waxay inta badan iigu yeedhaan bay tiri hodan balse markaan ka maqanahay waxay ii yaqaanaan yurub marka su-aashaydu waxay tahay horte marka hore xaq ma u leeyahay inaan magaca iska bedelo waa kow waa marka labaadee qofkii magacaa iigu yeedha aan diidanahay muxuu noqonayaa su-aasha labaad ee saddexaad gabadhan waxay ninbaa waxa uu leeyahay xaaskaygii 2 goor ayaan iyadoo uur la furay haddana mar saddexaad baan furay marka ma laga yaabaa buu leeyahay sheekh in qiil laga helo sababtoo ah reerkayga waan jeclahay shaydaan ayaana soo kala dhex galay marka 2 goor ee uurka furniinkii sax ma yahay mise markaa waa layga dhaafayaa buu leeyahay su-aasha afraad gabadh ayaa waxay leedahay fadiilat sheekh nin baanu muddo dheer sheekaysanaynay markii dambena wuxuu igu yihi waxba gacanta kuma hayo ee aynu ismeherxadno oo aynu si hoose isu sii mehersanno kadibna markii la gaadhay wakti ee aan ku idhi dee reerihii aynu sheegno wuxuu igu yidhi runtii anugu kumaan odhan sheeg ee qarsoodigaasaynu ku wadaynaa raggayagii markaan u sheegayna wuxuu ku yidhi anu gabadhaa garanba maayo sidaa awgeed waxay leedahay maadaama oo dee meher dhacay miyaan ninkii meher ku leeyahay furiinna ma ka dalban karaa su-aasha ugu dambaysa gabadhan waxay leedahay sheekh waxaan ahay gabadh shaqaale caafimaada waxaana ka shaqeeyaa cusbitaalada mid ka mid ah dadka aan u shaqeeyo waxaa ka mida bay leedahay rag marka haddii anigoo weyse qabaa nin aan u shaqaynayo ama aan dhiiggiisa cabirayo gacantiisa aan taabto weysadu ma iga jabaysaa sidoo kalena hooyo umulaysaa haddii aan caawiyo anigoo golofis xidhan oo dhiiggeedii soo gaadho sida oo kale weysadii ma iga jabaysaa بسم الله الحمد لله مغربك مغربك هدي وقتgiisii laga horeysiyo afurkana waqtigiisii laga horeysiyo labadaba waa qalle salaadii maqrib waqtigeedii aan la gaarin oo la tukaday waa qalle maalinka isagoo aan dhamaystirmin qoraxdu soo jeeda la cunayna waa qalle qofka adaamay iyadoo waqtigii la gaarinna de waa dambiili لأنه أمانة مو جذانين إلا الرسول صلى الله عليه وسلم حط الماء قف كمؤدكين ويا مؤتمن قف الآمنين مركب وحبو خيامة وخاين خيامة دينات بالسماء قف كنا هدو خيامة السماء حر ولا أما أبا المرن ولا عقاب أيقول لي فوضى إنها يستون بكم فوضى بنعيب بدن بينها يستطاع يعني نظام حماض حاجة دين تنوى كم مركب الريبة فوضى واحد كتفتا قفان مسؤولية دين قاضي كريم ولا دي بيو أذانك أحكامتي ما يقبل الله يا كنتمين أذانك أحكامتي سك بدن ما قرنايو إمام نما ما قرنايو هير هبل باللوجو دي مساجك دينو هير هبل ويري يوم مركب قاعد وكاكو يري القرآن دي سوى شيء ده أذاني مركب مساجد ده دتك أما إمام لوجو دي جاي أما مؤذن لوجو دي جاي كرسينا وكدم باب يعيد عنه هلاينا دو وديبو كاننا هدو دتك أفريا وكدم باب إلا تبقى لا لا حساب تما ماشي لقى إريانوي si aanu dib ugu noqonin waana dhacdaa taasina waxa keenaya inay soo noqnoqoto waa wax qabad la'aanta jihooyinka ay khusayso ama cidda masaajidka ka masuula ama wasaaradii ka masuulhaydoo waajibkoodii gudan waayay ayaa kalifaya dadkuna way soo qalaynayaan inantaa sheegtay in Yurub loo dhan jiray iska bedeshay way ku hagaagsantay magac kasto xun qofku iska bedeli karaa
siduu rasuulkuba uga bedelayay sala allahu calayhi wasalam rag iyo dumarba asxaabtiis wixii magaciisa uu garan waayo uu ka bedeli jiray nebigu qofkuna isaga xaq u leh magaciisa inuu bedelo dadku haddii ay kugu yeedhaanna dee way fiicayn hadday kugu yeedhi waayana way qaldayn weliba magacaad diidayso ama xun haddii lagugu yeedhana qaybaha xanta ayay ka mid noqonaysa alqiibatu dikruka akhaaka bimaa yakrah xan waxaa la yidhaha walaalkaa ood ugu yeedho qofkii muslimkaad ugu yeedho wuxuu diidayo markaa adigu doorkaagii waad qaadatay iyagana kula tali inay kaa daayaan ninka sheegay xaaskiisii inuu furay mar labaadna furay mar saddexaadna furay iyadoo uur leh saddexda dalqadoodba way dhacayaan waayo gabadhu markay ku jirto ciddo haddii mar labaad la furo wuu haleelayaa dalaaqu mar saddexaad haddii la furana wuu ka daba tegayaa kol haddii dalaaqu aanu mar keli ahayn ee uu kala googo-an yahay gabadh la furay oo ciddo tirsanaysa dalqadu ma ku dhacaysaa haway ku dhacaysa oo waxay leedahay xukumkii ooridoo kale markaa way kaa dhammaadeen bay ka dhigantay saddexdaa dalqadoodba gabadhaa sheegaysa inay iyada iyo ninku ismeherxadeen meherkaa la xaday ma jiro laakiin haddana marka aad doonayso inaad nin kala guursato ama ka madax bannaanaato laabudda min waraqati tafriiq warqad idin kala kaxaysaa waa inay jirto ama isagu kuu qoro ama qaadigu kuu qoro laakiin iskama guursan karaysid ilaa waxaan marka horeba guur baad u aaminsanayd waana ku wada socoteen meher waad ku yeelanaysaa haddii uu wax kuu magacaabay ama galma jirto inantaa kale ee sheegaysa inay u shaqaynayso iyadoo fiilka caafimaadka ama caafimaadka ka shaqaynaysa ragga u shaqaynayso ee ragga taataabanayso waxa kuu fiican dumarku inaad ka shaqayso ragga waxaad ka shaqayn kartaa haddii la waayey rag kaloo u shaqeeya innagana waa la helayaa oo way badan tahay in iyadoo la heli karaya ninka u shaqeeya inay hablo loo diro waa isxariifinta waxay ka mid tahay iyo maaragtay gaalo ku-dayashadii xasay ka mid tahay iyadoo inamadii neeraska halkan joogaan ayaa hablo neerasta ragga loo diraya inamadiina dumar baa loo diraya taasi sax maaha waa qalad waana gef weeye qofku kolka uu qof kaloo ka ajnabiya ama cawradiisu ka xaaraanta eegi karaa waa marka jinsigiisii loo waayo su-aasheeda kale ah haddii aan taabto xubinkaa tarankee qofkii aan ka dhalinaya anoo golofis gashan waysadu miyay iga buraysaa maya kol haddaad golofiskii gashan tahay oo wax kaa xiga kaama burayso wallahu aclam jazaaka allahu khayran intaasaynu kusoo gabagabaynaynaa su-aalihii maanta oo sheekh maxamed sheekh cumar diri inooga jawaabay ilaahay subxana wa tacaala miisaanka xasanaadka ha u saaro ciddii su-aal haysaa waxaan ka codsan lahayn wakhtiga maqhribka inta ka horeysa inay imaamka runtii soo gaadhsiiyaan sidaa iyo kulanka berri ayaynu markaa ku kulmi doonaa wassalaamu calaykum waraxmat ullah قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب واللقاء نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب واللقاء